wararka naga soo gaaraya magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ay xiran yihiin inta badan goobaha ganacsiga magaaladaasi. Arrintan ayaa waxa loo aaneeyay sicir barar doolarka oo maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa magaalada Qardho iyo deegaanada ku dhow. Waxaana meelaha xiran ka mid ah goobaha lagu iibiyo khudaarta, hilibka iyo ganacsiyo kale oo ku yaala magaalada Qardho. Sarifka doolarka ayaa gaaray halkii ugu sareysay abid magaalada Qardho, waxaana taasi keentay in ganacsatada qaarkood ay diidaan in ay wax kaga iibsadaan lacagta shilinka Soomaaliga dadka danta yar ee ku nool magaalada Qardho. Wararka ayaa intaasi ku daraya in qaar ka mid ah ganacsatada yaryarka iyo bulshada ay maanta Qardho ay ka dhigeen dibadbaxyo ay kaga cabanayaan sicir bararka ku yimid doolarka, isla markaana ay ka dalbadeen dowladda Puntland. Qaar ka mid ah shacabka banaanbaxa dhigayay ayaa waxa ay sheegeen in ay yihiin dad yar balse la diiday lacagtii ay wax ku iibsan lahaayeen ee shilinka Soomaaliga, waxaana ay uga baaqeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani arrintaasi wax badan oo ka qabto. Waxa sidoo kale ay uga baaqeen madaxda Puntland in qofkii diida isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ay ka qaadaan tallaabo, maadaama ay mas'uuliyiinta deegaanada kala duwan ee Puntland ay saameyn karto haddii arrintaasi ay sii socoto. magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garowe ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn kaasoo looga soo horjeeday sicir bararka doolarka ku yimid, waxaana gabi ahaanba xiran goobaha ganacsiga magaalooyinka Gaalkacyo, Garowe, Qardho iyo Boosaaso dhammaantood ka arrimiya maamulka Puntland. Ma ahan goobaha laga diiday isticmaalka shilinka Soomaaliga. Deegaanada Puntland ee horey ayaa waxaa u jirtay in magaalooyin ka mid ah gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Galgaduud iyo Hiiraan ay shacabka ku nool iska diideen isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. Taas ayaana keentay in sicir barar xoogani oo ku yimaado. Isku soo wada duuba banaanbaxyada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanada Puntland ayaa laga yaabaa in saameyn badan ay ku yeelato dadka danta yar ee ku nool halkaasi. Ismaaciil Abuukar, Bulshaawi, Kasmaal TV, Muqdisho.